ayuu boliis nimanka la yidhaahdeen waxay ka shaqeeyaan annaan garanayn iyo niman maxaa la yidhahdaa daaqdaaqi mee la yidhahdaa I don't know dad oo maalin walba dowladda Itoobiya oo gaana ku gaartay in ay awoodda ciidana ku qabsato gobolada Hiiraan iyo Bakool oo ka tirsan gobolada Soomaaliya iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo Itoobiya ka caawinaya sidii ay u qabsan lahayd qaybaha ka mid ah dhulka Soomaaliyeed ee xorta walaalkayga Soomaaliyeed oo haddii aad tahay muwaadin dhab ah oo jecel dalka iyo sidoo kale shacabkiisa Soomaaliyeed muuqaalkan sheer dheh oo gaarsi walaalaha Soomaaliyeed si ay u arkaan dhagarta iyo sidoo kale damaca ku jira dowladda Itoobiya xilliga kan maadaama wadankeena Soomaaliya uu leeyahay dowladda dhinac walba ka dhisan marka hore hadaad ku cusub tahay YouTube-kan Xaqiiqa TV subscribe saaro si warbixinada joogtada ah aad hadiyo gooraale ula socoto hadaad ku sugan tahay Soomaaliya iyo dunida dacaladeeda iyadoo maalmahan dagaal qaraar oo u dhaxeeya ciidanka dowladda federaalka Itoobiya iyo kuwa liyu boolis ee deegaanka Soomaalida oo isgarabsanaya iyo kooxda Al-Shabaab uu ka socday deegaanada dhaxadka ay wadaagaan gobolada Hiiraan Bakool iyo dhulka Soomaali galbeed ayaa waxa soo baxaya qorshe baaxad weyn dagaalka lagula jiro Al-Shabaab oo Itoobiya ku qabsanayso labada gobol ee Hiiraan iyo Bakool oo ka kala tirsan maamulada Hirshabelle iyo Koonfur galbeed Soomaaliya madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Cagjar ayaa ka hor dhacay damaca dowladda Itoobiya ee duulaanka ku ah Hiiraan iyo Bakool ee ka tirsan gobolada Soomaaliya wuxuuna shaaciyay in lagu dagaalami doono gudaha Soomaaliya waxa sidoo kale jira xubno ka tirsan dowladda Soomaaliya oo saraakiil ciidan ay ku jiraan oo ku gacansiinaya dowladda Itoobiya inay qabsato gobolada Bakool iyo Hiiraan oo ka kala tirsan gobolada Soomaaliyeed isla markaana ka mid ah gobolada ugu wax soo saarka badan Soomaaliya waa nasiib darro in dowladda Itoobiya oo ah cadowga Soomaaliyeed isla markaana aan jeclayn in Soomaaliya dowladda cagaheeda ku istaagta ayaa ka hana qaado iyadoo cadowtinimo badan ay qalbiga ugu haydo shacabka Soomaaliyeed in xilliga kani ay tiraahdo waxaanu qabsanaynaa gobolada Hiiraan iyo sidoo kale Bakool oo ka mid ah gobolada Soomaaliya kuwooda ugu faca weyn isla markaana Xasan Sheekh Maxamuud oo isagu dhagaha ka fureystay dhagarta Itoobiya ayaa la damacsan tahay shacabka Soomaaliyeed iyo waliba gobolada Soomaaliyeed waxay doonaysaa Itoobiya inay ciyaar ku qaadato qayb ka mid ah dhulkeena Soomaaliyeed oo aynu inagu xaq u leenahay walaalkayga Soomaaliyeedow haddii dhiig iyo damiir aad leedahay muuqaalkan sheergale oo gaarsii meel fog si xogta rasmiga ah ee markaasi Itoobiya ay damacsan tahay shacabka Soomaaliyeed ay u arkaan isla markaana looga digtoonaado dhagarta ay nala damacsan tahay dowladda Itoobiya maadaama shacabka Soomaaliyeed ay yihiin dad muwaadiniin ah oo dalkooda jecel ayaa waxay arrinkan ku noqotay hadalhayn badan maalmihii ugu dambeeyay maadaama Itoobiya ay iyadu la timid qorshayaal cusub iyo dhagarooyin cusub oo ay la damacsan tahay shacabka iyo sidoo kale dhulka Soomaaliyeed oo maadaama xilliga kan Itoobiya iyada gudaheeda ay qasan tahay ayaa waxay isku dayaysaa waxyaabaha dhexdeeda ka jira inay u soo rarto gudaha Soomaaliya ayuu boliis nimanka la yidhaahdeen waxay ka shaqeeyaan annaan garanayn iyo niman maxaa la yidhahdaa daaqdaaqi mee la yidhahdaa I don't know dad oo maalin walba xuduudda Soomaaliya aad moodo in macdani ugu daadsan tahay 20 firi tuulada Abaaley 16 kiiloomitir iyo bar ayay ku jirtaa gudaha Soomaaliya calanana ka taagan Itoobiya aan Soomaaliya aysan lahayn ayaa ka taagan ma garan karno sababta looga taagano ma garan karno sababta looga taagan 16 kiiloomitir iyo bar gudaha ku soo jirtaa nimankanna waxaa laga qabtay xodo wagle iyo dareerta inta ka dhaxaysa xagee meeshaas ma Lagos ma meeshaas Nigeria ma ku taala Soomaaliya ku taala xuduudda Soomaaliya meesha runtan waa la garanaya war hal la xishoodo in badan baan xishoonaynay hal la xishoodo ciidamada sida sharci darrada u soo galaya xuduudaha wadankana ama gobolka anaga hadda mas'uulka kana soo galayana indhaha kama qabsan doona haddii san naga xisho waanu kala hadalnay halkanaanu ku kulannay balad weynay nala tageen problem ka jirana waanu sheegnay weyna og yihiino ma weli kala man hadal dhowr jeer oo kale waa ka hadashan dhibaatooyin federaalka Itoobiya la hadlay sarkaalka uu jooga halkan in arrintan wax laga qabto weli ma dhicin wax laga qabto ishuga marka sida Allah ugu talagalo noqon doona laakiin waxaan filayaa haddii aan sifa sharciya aysan nimankaasi aysan u noqon
sida afduubka dadka mar walba loo handadaya ay ku wadaan waxay la tahay afduubo shaqay doono ayuu police nimanka la yiraahdeen waxay ka shaqeeyaan aanan garanayn iyo niman maxaa la yiraahdaa daaqdaaqi meel la yiraahdaa I don't know dad oo maalin walba xuduudda Soomaaliya aad moodo in macdani ugu daadsan tahay 20 firi tuulada Abaaley 16 kiiloomitir iyo bar ayay ku jirtaa gudaha Soomaaliya calanana ka taagan Ethiopia Soomaaliya aysan lahayn ayaa ka taagan ma garan karna sababta looga taagino ma garan karno sababta looga taagin 16 kiiloomitir iyo bar gudaha ku soo jirtaa nimankan waxa laga qabtay xoda wagle iyo dareerta inta ka dhaxaysa xagee meeshaas ma Lagos ma meeshaas Nigeria may ku taala Soomaaliya ku taala xuduudda Soomaaliya meesha tan waa la garanaya war hal la xishoodo in badan baan xishoonaynay hal la xishoodo ciidamada sida sharci darada u soo galaya xuduudaha wadankana ama gobolka anaga hadda mas'uulka kana soo galayana indhaha kama qabsan doona hadii san naga xishoodo waanu kala hadalnay halkan aanu ku kulannay balad weyn nala tageen problem ka jirana waanu sheegnay weyna og yihiino ma wali kala man hadal dhowr jeer oo kale waa ka hadashan dhibaatooyin federaalka Ethiopia la hadlay sarkaalka uu jooga halkan in arrintan wax laga qabto willa ma dhicin wax laga qabto ishuga marka sida Allah ugu talagalo noqon doona laakiin waxaan filayaa hadii aan sifa sharciya aysan nimankaasi aysan u noqon sida afduubka dadka mar walba loo handadaya ay ku wadaan waxay la tahay afduubo shaqay doono ayuu police nimanka la yiraahdeen waxay ka shaqeeyaan aanan garanayn iyo niman maxaa la yiraahdaa daaqdaaqi meel la yiraahdaa I don't know dad oo maalin walba xuduudda Soomaaliya aad moodo in macdani ugu daadsan tahay 20 firi tuulada Abaaley 16 kiiloomitir iyo bar ayay ku jirtaa gudaha Soomaaliya calanana ka taagan Ethiopia Soomaaliya aysan lahayn ayaa ka taagan ma garan karna sababta looga taagino 16 kiiloomitir iyo bar gudaha ku soo jirtaa nimankan waxa laga qabtay xoda wagle iyo dareerta inta ka dhaxaysa xagee meeshaas ma Lagos ma meeshaas Nigeria may ku taala Soomaaliya ku taala xuduudda Soomaaliya meesha tan waa la garanaya war hal la xishoodo in badan baan xishoonaynay hal la xishoodo ciidamada sida sharci darada u soo galaya xuduudaha wadankana ama gobolka anaga hadda mas'uulka kana soo galayana indhaha kama qabsan doona hadii san naga xishoodo waanu kala hadalnay halkan aanu ku kulannay balad